السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي الغالية الصدوى هذا أولا كنار يوسف. maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay waqtiga saxda ee la bilaabo borotiinka. Sida ognaa dhalinyaro badanaa waxay aaminsan yihiin in uu yahay wax lagu dhismo borotiinka. Marka waqtiga saxda ee borotiinka la bilaabo dadka jiimka dhigtay borotiinka bilaabi karaan. Maanta mawduucan intaas ku saabsan yahay waxaa kaa codsan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo page-keena soo booqanaysid janaalkeena YouTube-ka inaad subscribe noo saartid si aad casharada jiimka iyo dhiirigelinta jiimka talooyinka jiimka uga faa'iidid. Waxaa kaa codsanaya inaad page-ka iyo Facebook-gana follow soo dhaadid si aad talooyinka jiimka iyo casharada jiimka uga faa'iidid. haddaan mawduucina maanta gudaha u galo waqtiga saxda ee la bilaabo borotiinka waa waqtigee. dhalinyarada badanaa waxaa arkaya qof jiimka ku cusub haddana borotiin ku cararayo. marka waqtiga munaasabka ah ee borotiinka la bilaabi karo dadka jiimka dhigtay borotiinka bilaabi karaan waa goorme. horta dhalinyarada badanaa waxay iska dhaadhiceen qofka hadduu mar borotiin cabin inuu dhismeyn. waxaasna wax sax maahan. haddaa borotiin cabtid iyo haddaa borotiin cabin jirkaada hadduu marka u diyaarsan yahay inuu birta ay qabato waa diyaarsamee. muhiimadda maahan inaad borotiin isku daldashid. borotiinkana badanaa wuxuu jirka u keenaa inuu faad badan ku galo. marka waqtiga saxda waa waqtigee. waqtiga saxda qofka oo borotiinka bilaabi karo markuu jiimka bilaabo waa 6 bilood ka bacdi. sababtan waxaa leeyahay qofka markuu miisaan yar qaada sida 5 kiilo iyo 10 kiilo isagoo wado oo 10kaas iyo 5taas miisaankiisa oo 5taas iyo 10kaas u dhaafaynin borotiin ma bilaabi karo. borotiinka qofka wuxuu bilaabi karaa markuu miisaan culus uu qaadi karo sida 20 wixii ka koreeyo. qofka markuu birta la qabsado oo jirka birtiisa ay gasho oo birta oo culays iyo tabar darro uu ku dareemin markaasoo borotiinka bilaabi karaa. laakiin qofka asagoo 10 kiilo iyo 5 kiilo qaadaya inuu borotiin iyo isku dilo waxaa leeyahay qarashkana waa kaa dhamaanaa borotiinkana waa kaa muuqanaya. borotiinkana waa kaa muuqan daartid waa inaa waqti cayiman aa bilaawid waqtigaas oo ah 6 bilood ka bacdi. 6 bilood ka bacdi haddaa bilaawid birtan aa fahantay. qofka markuu jiimka 6 bilood ku jiro waa maruu jiimka fahmay oo miisaankan ula qabsaday oo casharadana u adkeysan karo. markaas ayuu borotiinka bilaabi karaa. dhalinyarada badanaa ayagoo yaryar 18 sano qof ka yarna borotiin inuu isticmaalo mamnuuc waaye. qof arkay 18 sano ka yar oo borotiin loo soo qoraa ama borotiin meelaha borotiinada lagu gado kale intoo tago ayagoo da-dooda weydiiya dadka qaar iska soo siinaya. marka waqtiga saxda waa 6 bilood ka bacdi. markaa birta fahantid miisaankaagana aa keliga aa qaadan kartid sida 20 kiilo kale 25 kiilo kale aa keliga qaadan kartid markaas wixii ka dambeeya borotiinka waa isticmaali kartaa. ka hor marka ma isticmaali kartid sababtoo 5 kiilo waxaan borotiinkan wuxuu u baahan yahay inuu jirkaada galo si dhiid badan aa u heshid. marka 5 kiilo waxaa wax energy badan makaa rabto miisaankaadana waa iska yariyaa. marka wuxuu rabaa qof ku dadaalayo oo jirkiisa gelinayo oo anaa 5 kiilo waqti qofka markuu qaadayo ama 10 kiilo juhdi badan dareemayo. laakiin qofka markuu miisaan culus qaado wuxuu rabaa awood oo xogaa birtaas ku qaado awooddeedana wuu haya sababtoo ah 6 bilood oo soo tirigelinayo oo jirkeeda soo baraya kabacdi marka borotiin bilaabi karaa. mawduucan maalintaas ku yahay wixii su-aalana waa isoo weydiin kartiin asxaabteeda. haddaa ilaa dhammaadkii la soo socotay waxaa kaa codsanaya mar kale inaad janaalkeena subscribe noo saartid. Facebook-geena sidoo kale follow soo dhacdeed si aad jiimka talooyinka jiimka ku saabsan iyo casharada jiimka ayaa kugu dhaafin. waana mahadsantihiin asxaabteeda.